بسم الله الرحمن الرحيم هذا سوانك السلامي صار صباحيا نرجس كسو بخني حلنا waxaanu seexanay waanu joognay kala galab baan soo galay magaalo madaxda degmada Garadag xalina halkaas ayaan maxaan ku raadayay aanu ku sugnayn safarkii wuxuu daaran yahay ama muhiimadiisu ay tahay inaan ku koorgalo sida ay diiwaangelinta ay u socoto gobolka Sanaag ka warqabto gobolka Sanaag waa gobol boqolkiiba 40 weeye iskoo marka Soomaaliland la eego gobolka waxaan ku raadayay Sanaag intii si darafkiisii hore ayaanu joognaa shalata waxaanu soo marnay waxa weeye waa xayira waxaanu soo marnay waradaad waxaanu soo marnay barkadii xalay aanu ku heynay Garadag oo dadkana shalay galab baan la hadalay xalayna shilal gaar ah ayaanu waashi iyo madaxdhaqameedkii degmada iyo aanu la shirnay taaka waanu kasoo kalahnay marka weli ceelaf weyn baanu ku sugannahay sidaanu ka warhayno degmooyinka kalena si fiican bay uga socdaan laakiin imika inta aanu ku sugannahay runtii aad iyo aad degmooyinku maxaa labada degmo ay hawlo uga socdaan oo hadday buur tahay iyo hadday xeeb tahay iyo hadday banaan tahayba waxaan ku dhahday dadku ay maxaan ku dhahday isaga diiwaan gelinayaan si qurux badan alxamdulillah ay u socdaan oo nabadgelyo ay ku jirto ilaahay marka dadkana waxa weeye waxaan ku dheefi gelinaynaa gobolka Sanaag oo dhan jooga meel kasta ha noqotay hadduu banaan joogo iyo hadduu buur joogo iyo hadduu xeebaha joogaba oo noqotaa xeebuhu waa arrintu yar adag tahay oo waa kuleyl oo dadka inta badan way xagaag bixeen ama xagga buuraha ama banaanka ay soo baxeen waxaanu ku dhiiri gelinaynaa inay diiwaan gelinta si kasta ha waqaatee ay maxaan ku dhahdaa ay soo banaan baxaan oo ay diiwaan geliyaan waxa ku xiran muwaadinimadiisa waxa ku xiran gobolnimadiisa waxa ku xiran degmanimadiisa wuxuu kaga duwanaan doonaa dadka kale aan reer Soomaaliland lahayn waa wax gaar oo astaan gaar oo qaali oo wuxuu noqon doonaa qof muwaadin Soomaaliland ma iyo maxaad ku tahay waa taa kaadkeedii diiwaangelinta waa kaasay maxaan ku dhahdaa aan muwaadinka ku ahay si qurux badan ayaana loogu soo dhaweeyay labada degmada oo aanu aad iyo aad uga mahadnaqayno dadweynaha halkaas la sabaha iyo maamuuska hadda madax dhaqameedka iyo hadda shaqada dhalinyarada iyo haweenka intaba ay tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa safarkaygu waa safar runtii ballaaran ilaa muddo socon doono inta ay hawluhu noo saamaxaan ama aanu ugu talagalay hawlo kale oo badanna waanu ku jirnaa oo hadda aanu ka shaqeynayna waana hadda ka hadlayn laakiin oo horumarka dalka iyo Soomaalilandnimadu waxay tahay wax weyn ka tari doona markaas marka waqtigeeda la gaaray ayaan idin soo baahin doonaa alxamdulillah meel wanaagsan bay hawluhu maraya saacada wasiir waxaad ka warantaa fahamka bulshada ee diiwaangelinta wallahi aad buu sareeyaa dadku waxa weeye niyadooda aad bay u sareysaa waa dad deerdeeran waa dad diyaar garow ay ka go-an tahay inay qof waliba isdiiwaan geliyo waa dad yani runtii dareenkooda farxadi ka muuqato waa dadku dadna waa dad shaqeynayo oo dadna waa dad isdiiwaangeliyo dadka degmo walba hadday madax dhaqameedka tahay haddii degmada dadka joogata waxay jecel yihiin inay u fududeeyaan dadka qaarka aan gaari karin si ay diiwaangelinta uga dhacdo marka wixii ay baabuur hayeen iyo wixii ay cod samaynayeen ba way ka shaqeynayaan waxaad moodaa meel ay tahay qof walba qofka kala caawi oo waxaan isu gelinaa waxa weeye saanu dal degmadeeni ay u korto ama ay degmadeeni maxaan ku rahdaa degmooyin kale ula simanto inay noqoto khasab inaynu ismuujino deegaanka dadka maxaan ku dhahdaa deegaan waxaan soo aragnay dad runtii farxad hawsha ku gelaya oo isu gargaaraya oo runtii ka muuqato muwaadininimo dhabay waan gatay saacada wasiir maadaama gobolka idil ay diiwaangelinta ka socoto meelaha qaarkood ay yihiin in deegaano miyiga bal xagga farsamada hawsha diiwaangelinta ka waran wallahi xagga farsamadu waa miyiga iyo xeebahaba iyo buurahaba laakiin waxaad moodaa sanadkan maanta inay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go-an tahay inuu qofku isdiiwaan geliyo si kasta ha adkaatee commissionkuna runtii ay ka shaqeynayaan sidii hawshaasi ay u geli lahayd diyaar garow badanna uu ka dhacay xagga dowlad ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed maxamuud Silaanyo hadday kharashkeedii tahay iyo hadday kharash dheeraad oo aan weligeed loogu talagelin ay tahayba oo ay nala bixin waayeen qolihii berigii hore nala bixin jiray waxaa heer baynu gaarnay aynu ka qayb qaadanay inta badan maanta miisaaniyadeena qarankeena kasoo baxda iyo wasaaradda maaliyaddu oo madaxweynuhu maxaan ku dhaha wixii looga baxda aynu kasoo qaadan hadday amniga ciidamada tahay maanta meel walba dadka caawinaya gobolka oo dhan way ku faafsan yihiin
iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa yani hawsha ay qaranka jamhuuriyadda somaliland uhayaan marka hawl wacan baa socota runtii oo aad iyo aad iyo diilo weyn qof kastoo jamhuuriyadda somaliland ku nool gelinaysa. waan gatay saacad wasiir ugu dambeyn safarkiinu haata waxaad sheegtay inaad ku sugan tihiin magaalada ceelaf weyn ee gobolka sanaag xageebuu ku jeedaa hadda iyo wixii ka dambeeya? safarkayga wuxuu ku jeedaa meel gobolka sanaaga oo hawl gaara aanu ka leenahay hawshaasna way soo bixi doontaa marka aan ka waktigeeda la gaadho waa arrin iska farsamo aanaan ka warramayn hawshaasu halkaasuu ku jeedaa waad ogaan doontaan waxay tahay ilaa berrito haddii ilahay nafteena odaayo. aad buu mahadsan yahay kaasi waxa waa wasiirka warfaafinta mudane cismaan cabdilaahi saxardiid cabdaani oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada ceelaf weyn ee gobolka sanaag.